سائل كان أفراد وحليه هي مقعي وعبد الشكور فارح علي سؤال شو حوي الشيخ حاس كيجا أو أنشع لهاي هدي أي قدمته يدو سجال بلاد وحما يسو تري كرنا يدا إيو إلمها أي أورك كسيدي بمعنى آخره. بسم الله والله بس سؤالات سيدي هنا نقل قادم سؤال شكوباد إلمها أي أورك كتشري دينتي وحما كو تري كرا آخر وحما يسو تريسان سؤال شلوادنا إسلانتي لفت هذه يدنا آد قبتي كاردمت آخر وحما ليسو تري labadaasoo midda ilmaha haddaan ku hormarno axaadiis fara badan baa nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam oo saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniidaba ku taala saxaabo fara badan oo dhowrana nabiga ka wariyeen sallallahu alayhi wasallam inuu nabigu yiri ruuxii hormarsado oo ay u dhintaan saddex ilmood jannadu galaya saddexdaas oo aan qaan gaadhin يعني أولي كان قاد لم يبلغ الحنثى حلقي دنبيق الله قري لها أن قادين يقول يرير قيريودي شندو قليا رواية كالوحي لها هاي نارتي كحجابيا رواية كالوحي لها هاي إريد كستو إريدها شندا كميدا أوتاقو يجب أفريا رواية كالوحي لها هاي إلهي باوحو ugu naxariisanaya naxariistan oo caruurtan u naxariisanayo iyo waalidkoodna ugu naxariisanayo saddex ilmood markaas ay saxaabadu weydiiyeen rasuulullah labana ka waran labana waa la mid buuri nasiibku wuxuu noqday hal mayna weydiinin marka waxay leeyihiin halka maxaa loo weydiin waay waxa laga yaabaa inuu yadara ku dari lahaay marka halka lama weydiin laakiin labo iyo saddex iyo wixii ka badan ruuxii u hormaraan oo caruur ah inay anfacayaan oo u shafeecayaan xadiista nabiga ku sugan tahay sallallahu alayhi wasallam hadduu mid yahay baa soo haray hadduu mid yahay shaki ma leh aayadda waa soo galaya walladina aamanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay dadka mu'miniinta caruurtooduna iimaanka ku raacday iyaga caruurtooda yaan kulminaynaa baa Ilaahay tabaaraka taala iyaga caruurtooda waa la isu geeynayaa marka hal ilma haduu yahay iyadana sidoo kale nafcigu waa jiraa laakiin ma gaaraya labada iyo saddexda ma gaaraya baa su'aashu ka taaganta taa horta xagga ilmaha way ilmuhu hadduu uurka ku jiro iyo isagoo banaanka jooga hadduu dhinto iyo hadduu uurka ku dhinto miyay kala duwanta maya laana xadiisku ma kala qaadin laakiin waa inuu yahay ilmo nool oo naf la geliyay oo markaa kadib ka dhintay sooma haddaan nafba la gelin oo soo dhaco oo inta nafba lagu afuufinba uu islaanta ka soo dhaco ma ilma ka dhintay markaa markaa muxuu ahay هذا النفط ما قلنا ما نولين با ضوضا سوا جرتا لكن ilmo nool oo hooyo la dhintay ama isagii ba dhintay shaki ma leh inuu galayo hadiiska ahadiista umumkeeda galayo taa waa xagga ilmahaaga dhintay xagga xaaskaaga aad jecesha saad sheegto ayadana aakhiro wax ma leestari xadiis nabi baa jira sallallahu alayhi wasallam ديرك الدوراني بأسوء صار من حديث أبي الدرداء وأنا حديث صحيح الشيخ الباني سيدو له وحليه حديثك المرأة لآخر أزواجها وين يذو رجع ذي قرصدي نينك أقدم بيا أي آخر حاس أطه سأسترد الحاس كاجي أظن نور سو كامردبن هذا أقدم بيا وحي قبي آخر هذا أن شنده وذا قرشان إن شاء الله وسيليسان sooma marka soo nafci weyn ma inaad jannada ku qabto saada adduunka ugu qabto taana waa mid labaad way marka xaaskiina waa ku horeysa ilmihiina waa ku horeeyaa dadaalkaad ku heli lahayd la imo jannada una haseegin haddaad rabto inaad hesho oo mar kale intifaacsato dadaalkeedii ha laga helo insha Allah taala wallahu a'lam